بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان إن شاء الله تعالى وحنا كويجنا هب كانوا سمين إنه error page كي أنا قف هذا سن مركز مرة البعضية الذي جرته إنه تجا بيسوي ريتشي هالكا إن page كان إنه ودا إن وكود دون مرة البنكو شهين إنه إن ku sameynaa qaabkii aan ugu jahayn lahayn. marka horeysa waxaan u baahanahay inaan sameyno file cusub. magaciisa wuxuu noqonayaa .htaccess ayuu noqonayaa. xagga dambe waxba kama dambeynaya walaa .hp walaa HP noqon maayana .php noqon maayo .html xagga dambe waxba kama dambeynayaan. xaggiisa ugu horeysa waa dot magaciisana waa htaccess. linekaasaan ku qoraynaa error document hadday jirto waliba qaabka ay tahay qaabka intaad u qoraysaa. hadday ciladaasi timaado space bar u dhexeeya error document space 404 space kale waxaan sameynaa markaa maadaama isticmaal iminka local house ku sameynayno waxaan isticmaalnaa calaamada kadib filekeena ama folderkeena magaciisa oo ahaa som kadib waxaan gelinaynaa haddaba xaashida ama pagekan doonayno inaan u jahayno. waxaan sameynaa page cusub oo la 404.php ama html sida doodidba inoo save kare. haddaba halkan aan tegaynaa right click c new file waxaan bixinaynaa page cusub aan sameynaa 404.php. halkan ku qoran this is error page. haddaan iminka browserkeena soo kicino xaggan aan ku sameyno waxaan jirin ku qorno enter c wuxuu noo soo saarayaa this is the error page. maadaama isaas tahay haddaba waxaan keenaynaa halkan waxaan sameynaynaa haddaba pageki error pagekaan sameynaynaa. waxaan kusoo qornay intaa ama waxaad sameynaysaaba kan la yidhaahdo index dhammaantii halkaa nagu jiro dhammaantood ba soo qaad copy ama adoo copy waran file new bootstrap file intay noo soo qaad markaa kana dhex dhigaynaa. adigu anu barnaamij baan isticmaalayaa. habka barnaamijka loo isticmaalayo oo bracket la yidhaahdo habka loo isticmaalaya cashirkana ku qaadan doona inshaalla. hoosteenu tegaynaa halkaasaynu doonaynaa markaan kusoo sameyno naaftan ka saar meesha naaf barka ka saar meesha. halkaasaan haddaba u doonaynaa kusoo sameyno error pagekii insha allahu tacaala. waxaanu sameynaynaa markaa waxaan leenahay container waxaan sameynaynaa div glasskiisu yahay container. waxaan sameynaynaa panel la yidhahda panel magaciisu wuxuu noqonayaa panel error danger bu ahaa. xaggana waxaan sameynaynaa panel heading aan soo tijaabino. inoogu soo saarin. xagga waxaan leenahay primary haddaba halkaa ka dhig halkaa ku noqotay danger primary inoo tijaabi waana blue ka dhigaa markaa waana blue caadi uga dhigaa muu soo qaban cilad baa jirtuu sheegaya halkaa kurkan wax khaldaynaa waan ka daynaa. waxaan leenahay halkan aan ku sameynaynaa waxaan sameynaa class cusub la dhahdo error
kadib waxaan sameynaynaa div class cusub oo ah error, kadib waxaan sameynaynaa markaa div cusub baan sameynaynaa, waxaan bixinaa error title, waxaan leenahay error page, haddana waxaan sameynaynaa class kale oo la yidhaahdo error and body, haggana markaa fariintaan soo gelinaynaa, waxaan leenahay sidaas u samee ops, intaasna u baahna weynaato span ops we are sorry for that. Enter. Hadda waxaan leenahay error footer, waxaan leenahay to go, to back, home, click here. waxaan sameynaynaa halkan ku qoraynaa anchor baan sameynaynaa xariif, waxaan ku sameynaynaa halkan local host, xaggan waan xidhaynaa heer baan ku qoraynaa inoo soo refresh garay. haddaba intaas inoo soo qoray, waan yar habeysanaynaa markaa, waan yar habeynaynaa, waxaan tegaynaa filekeenii css kime assist css, waxaan ku sameynayaa file cusub oo la yidhaahdo custom .css, waxaan gelinaynaa haddaba kii la odhan jiray, halkan u yeedhaynaa, waxaan leenahay halkan link, waan yeedhnaa halka inoo yaalla imika, waxaan sameynaynaa error title, horta errorkaasaan keenaynaa classkaas, waxaan leenahay wordskiisa waxaan siinaynaa, wordska waxaan siinaynaa boqolkiiba 40 baan siinaynaa boqolkiiba, heightka waxaan siinaynaa padding baan siinaynaa padding 20 baan siinaynaa dhinac walba, waxaan siinaynaa border 1 pixel solida, colorka waxaan siinaynaa colorka la yidhaahdo, colorkaasaan siinaynaa, background waxaan siinaynaa background color waxaan siinaynaa ka la yidhaahdo, waxaan siinaynaa ka la yidhaahdo ccc, waxaan siinaynaa markaa margin, imikastaan markaan sameyno inoo soo refresh garee, una fiirso halkiisi buu oolayaa un, inaguna waxaan u baahannahay qoraalkan inuu bartamaha keeno, qoraalkan waxaan u baahannahay xaashida bartimadeed inaan keeno, waxaan tegaynaa halkan, waxaan leenahay margin, dhinac walba xagga saraad waxaad ka siisaa 3em, dhinacya walba waxaad ka siisaa markaa 3em, dhinac walba dhinacyada kale waxaad ka siisaa automatic, soo refresh garay. haddaba xagga sare uu kasoo fogaanayaa, xagga kalena automatic bartamuu tegayaa, adiga arkay kasoo noqday, xaggana yar bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa xagga tahay 3c, waxaan ka dhigaynaa f9 f9 f9
ka saas inooga dhigay. haddana markaa soo yareyno xaashida pageka haddana yareyno iyo haddii kaleba mar walba waa responsive wuu la weynaanayaa adiga arkaya mar buu la weynaanayaa. qoraalka waxaan u baahanay bartamaha soo dhigno. waxaan leenahay text align center toos buu markaa bartamaha u imanayaa qoraalkii. waxaan u baahanahay inaan error pageka la xariijin hoos marino. waxaan sameyneynaa u yeedhaynaa error title border bottom baan u sameyneynaa 1 pixel solid. hadda waxaan u sameyneynaa intaan borderka loo sameynin waxaan u sameyneynaa padding waxaan leenahay 5 pixel dhinac walba. haddana waxaan leenahay border oo bottom ah intaa in lag baan keensaneynaa. laakiin waxaan ka dhigaynaa halkan DDD soo refresh kare unoo fiirsa markaa wuxuu diidan yahay. waxaan khaldaynaa markaa titleka miyaa xariijida ma muuqato waan bedeleynaa. haggay tahay DD waxaan ka dhigaynaa 3E eeg bal haddaba عفوا خلدي عفوا waxaan leenahay 1 pixel solid soo refresh kale markaa la xariijin markaa inoo sameeyey. halkan waxaad arkaysaa inaan dhamaystirnayn waayo waxaan sameynay padding baan sameynay saasaan doonaynaa. kuwan kalena saas oo kale mid walba padding ugu sameynaynaa. waa error body padding and 5 pixel. haddana waxaan leenahay error body spankiisa wixii qoraalka span ku jiray baan doonaynaa. color waxaad u sameysaa red asaan u samey waan kordhiyo. error bodygi qoraalkii ku jiray error bodyga span kusii jiray haddana gaarkiisii red c waa qoraalkan idhahdo obscas soo refresh kare waa ka casaan binoo siiyey. error pageka waad bedeli karaysa waxaad ka dhigaysaa h1 baad ka dhigaysaa maadaama isagu titlekii yahay. waan tegaynaa halkaan leenahay waxaad ka dhigtaa error pageka bedel baan leenahay waxaad ka dhigtaa h1 dhexgeli ha yar weynaada markaa qoraalkii baa yar weynaaday markaa. waka saas u weynaaday. halkeenana saas oo kale u sameynaysaa. waxaan u sameyn karaynaa markaa borderka waxaad ka dhigi karaysaa border radius ka dhig halkan. waxaan leenahay halkan inoo tag waxaad leedahay waxaad ka dhigtaa border radius 8 pixel soo refresh kare haddaba noo fiirso suu ka dhigay markaa saasuu ka dhigay koosi qurux batay. buluga halkaa inagu yaalla waan bedeleynaa. buluga halkaa inagu yaalla waxaan leenahay error footer weliba eeda waxaan kasii dhigaynaa colorkeeda waxaad siisaa 3 fc padding u samee
oo 5 pixel waxaad u sameysaa background color waxaan u sameynaa colorkeeda 3 soo refresh kare oo kalkayna okay saas u ka dhigay oo markaa way muuqanaysaa click here way muuqanaysaa markiiba saas oo kale aan qurxin karaynaa even anything khalad kasta haddaan sameyno page ha jirin waxaan sameynay page ha jirin baan halkan gelinay log in enter baan siinay cilad baa jirta buu leeyahay markaan sidii caadi uga qaadno index.php waa kaa caadiga noo geenaya index baan tagnay enter baan siinay cilad baa jirta buu leeyahay waayo waxa weeyaan ciladii wuxuu ku sheegayaa mar walba page ma jira buu leeyahay laakiin hadhow insha allahu tacaala waan eegi doonaa sidaan taas oo kale u sameynayno even hadday ku dhacdo redirect baan ku sameynaynaa taas oo kale hadday dhacdo indexkaasoo keliya inuu geliyo isagoo inta kale shaqo kuma lahaye inuu markiiba soo qabsado aan eegi doonaa insha allah baaraka allahu fiikum saasi ka faa'iidaysi wacan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh